marxuumka Allah u naxariisto meesha ka baxayna ma taqaana annaka Jubbaland wuxuu ahaa odayaasheeda kuwa ugu qiimaha badan buu ka mid ahaa ummadda Soomaaliyeed iyo Jubbaland ba dhamaan ugu tacsiinaya asagana qabrigiisa Allah uu waasiyo ehelada uu ka dhintay ma taqaana wax khayr qaba Allah ugu bedelo amiin samari iimaan Allah ka siiyo waa rajeynaya jannadiisa firdaws Allah uu waasiyo qabrigiisa kitaabkiisa midda Allah ka siiyo annaka raadiyaan nahay Jubbaland waxaan leenahay waa odaygayga waa ugaaskeygay waa nabadoonkii naga dhintay waa xasuusnaan doonaa insha Allah kariim cid kasta oo Soomaalina ma taqaana wanaagiisa way xasuusnaan doontaa marka waxa dilay gacan cadow ayaa dishay waxyaalaha dalka ka dhacay ka mid tahay marka insha Allah kariim waxaan leenahay dhamaanteen ma taqaana samri iman Allah naga siiyo way marka maanta waad kulanteena lagu yiri xubnaha baarlamaanka waxyaabihi aad ka hadasheen qayb ay ka ahayd xaaladda amni ee Jubbaland iyo dilka marxuumka maxaa ugu waaweynaa isku soo hadal qaadeen Jubbaland xildhibaanada Jubbaland waxay markastaba ma taqaana ay ku dadaalaan ay ma taqaana caam ku yihiin wada jirkooda iyo midnimadooda in ma taqaana ay ku dhiirigeliyaan ama ay dawladda kala hadlaan amniga inay sugto waa waxyaalaha aan ku deganahay oo xasiloonada aan ku haysano amniga waa laga hadlay arrinkaasagana waa laga hadlay taxadir badan iyo attention badan ciidamada amniga hore way u hayeen haddana way sii wadayaan arrinkan baan dhiirigelinaynay wax kale oo saayida ma jirin dee markii odin culus uu meesha ka baxa in la soo yimaado oo la xasuusiyo amniga la isku baraarujiyo marka waxaan dhamaanteen waajib u leenahay marka waajibkaas baan gudanaynay marka dilal way dhici jireen waxna waa magaalada gudaheeda way ka dhici jireen inkastoo aanay badnayn oo magaalada amnigeedu uu yara wanaagsan yahay kan intaad hadashaan meel gaar ah aad ku qortaan oo aad tiraahdaa war nabadoonkii iyo say wax u ahaayeen dilkiisa iyo dhahdaa maxaa dhaliya ma tuhunaa jira maya tuhun wax la yiraahdo ma jiro tuhun wataqaana waxyaalaha dalka Soomaaliya ka dhacay ka mid tahay xamar tusaale maalinka markay ugu yartahay 15 qof ka badan baa ku dhimato goboleedyada way ku dhintaan meelaha ugu mataqaana wax xasiloon badan baa wax tuhun ama qabno waxaan aaminsanahay mataqaana dadkii wax dili jiray inay dileen wax kale oo tuhun oo qabno ma jirto diyaar lu siimado la isku baraarujina waa waxaan waajib u leenahay dee marka hore hadday wax dhacaan markasta waa sulimaadnaa waa isbaraarujinaa dee adiga maanta u baad maqashay mataqaanaa baraarujinteeda iyo sumaatankeeda mid kasta marka waa xildhibaan xamar maalintii 15 kuwan dhimatay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo warar ayaa jira oo sheegaya in ninkan la dilay ee nabadoonka ah Allah u naxariistay ay tuhuna jiraan cid dilkiisa ka dambeysay shabaab loo maleyn maayo waxa la yiri rag kale oo dhar cad ah oo magaalada lagu soo daayay ayaa la tuhunsan yahay waxa uu ka soo horjeestay amaro madaxtooyada Jubbaland ka soo baxay oo xubnaha baarlamaanka iyo dhismahooda cusub ku saabsana maxaa iga sheegi kartaa wararkaas arrinkaas asaga tuhunka asaga annaka ma qabno ninkaas waxaan tuhunsanahay in ay jirto tuhuna inuu dilay shabaab cid kale oo ku tuhunsanahay ma jirto Jubbaland iyo nabadoonka dhintayna waxa u dhaxeeyay oo xumaana ma jiraan wanaag baa u jirtay waxyaalaha mataqaana dadka kale oo joogo amnigooda ay saxaysa ama ay dabagalaysa amnigooda la saxayo oo dawladooda la joogay ka mid yihiin wax dib oo mataqaana lagu hayana ma jirto wax ka dhaxeeyay Jubbaland iyo odiga la dilina ma jiraan mataqaana wanaag baa ka dhaxeeyay doonkaas mataqaana waxa uu qabo mataqaana dad fikir gooni ah qabo annaka ma qabno inay Jubbaland iyo doonkaas ay qabno waaya ma jirtaa inuu yiri ogolaan maayo ilaa 3 qof inaan soo xulo oo xildhibaanada cusub ka mid noqda oo aan dawladda Jubbaland u geeyo oo ay mid ka doortaan ma jirtaa dadka noocaas ah oo ka soo horjeeda inuu ku jira aragtida qabay ma hayo warkaas aniga iga war sida kale Jubbaland iyo xaaladda doorashada sida ku socotaa baarlamaanka doorashada baarlamaanka xilliga loo asteeyay kulligii guddiga doorashada gacanta ku hayo iyo odayaasha weli waxaa jira abaabulkii qabanqaabadii doorashada loogu diyaar garoobay wax la guda galan ma jiraan
waxaana rajaynaynaa sida ugu wanaagsan inay ku dhici doonto xilligeeda doorashada hadduu ilaahay qadaro waana ku dadaali doonaa hadduu ilaahay qadaro inaysan waxbana ku darsameyn waxbana ka dhiman si loo jaangooyo dad badan oo Soomaaliyeed waxay qabaan in aanay doorasho xor ah iyo xalaal ah Jubbaland ka dhici doonin xataa 30% inaysan doorasho wanaagsan ka dhici doonin Jubbaland aragtida nooca dadka qaba maxaa uga turxan bixin leh xaaladda Jubbaland ka warhaye waxaan ugu bato waxaan dhihi lahaa dadka fikirka asaga qabo ma aha waxaan rajaynaynaa inay dhacdo doorasho xalaal ah beesha caalamka dawladaheena mataqaanaa daneynaya Soomaaliya dawladda federaalka ah intaba ay kasoo qeybgeli doonaan ay goobjoog ka noqon doono Jubbaland mataqaanaa xaq u leedahay inay doorashada ayada qabato waxaan rajaynayaa si wanaagsan oo tuhun lahayn oo cad oo clear ah inay doorashada ayada u qabsoomi doonto dadka mataqaanaa ma dhacayso doorashada xalaal uma dhacayso waxaan rajaynaynaa inay u dhacayso xalaal tuhunkaasna iska saaraan marka sidaan hadda wax u socdaan miyaad leedahay wada sax weeyo xalaal bay keeni kartaa mise waxba qorsheysan in laga bedelo waxaan isleeyahay haddaba wax mataqaanaa abaabul iyo qabanqaabo baa socota hadda wax la gudagalay ma jirto waxaan isleeyahay si xalaal ay u socotaa caburinta waxay gaartay heerkii ugu sarreeyay dadku ma hadli karaan xubno xalaal oo ay ku kalsoon yihiin ee baarlamaankii ugu soo horeeyay dooran maayaan murashaxiintu magaaladu kama hadli karaan dhaqaaq ma lahan sidee ayaad rabtaa markii inay doorashadu ku noqoto mid oo faaf reeban oo hufan oo aan dhibaato lahayn waxaan ku cadaynayaa musharaxiin ilaa 4 ama 5 gaaraya inay yimaadeen magaalada ku meel gaarka magaalada madaxda Kismaayo musharax kastana uu xaq u lahaa inuu la kulmo qabiilooyinka odayaasha siyaasiyiinta uu baahiyo hadafkiisa siyaasadeed mayna jirin wax caburina ama lagu lahaa mayna jirin haddana waxaan rajaynayaa sida ayada ahayd oo hore u dhacday isla lamida inay mataqaanaa musharax kasta uu xaq u leeyahay imaan doono doorashadiisa iyo qabanqaabadiisa iyo abaabulkiisana uu wadan doono amnigiisana ay sixi doonto dawladda Jubbaland gabagabo marka maxaa ka jira dhalinyaradan la yiri waa dhar cad oo magaaladii lagu soo daadiyay oo maqaayadihii iyo goobihii dadka isugu imaanayeen jooga diiday fadhi ku dirarkii diiday in laga hadlo waxyaabo siyaasadda Jubbaland quseeya ma hayno warka asaga annaka ciidamo dhar cad oo la soo daadiyay oo dadka inay caburiyaan loogu talagalay ma jirto ciidanka amnigaas ilaalinayay oo mataqaanaa booliiska ama nabadgelyada marka hore waajibkooda way gudanayeen cadowguun bayna mataqaanaa ku wajahanayeen arrinka asaga ahna ma jiro waxaan leeyahay waa been saacadan xaadirka ugu dambeyn mudane xildhibaan waxaa jira waxyaabo adduun iyo aakhiro qofka la weydiinayo daba joogi doona siyaasaduna way dhib badan tahay oo meelo badan bay dadku ka ridaa muwaadin Soomaaliyeed baa tahay Jubbaland baad xildhibaan ka tahay qaranka dawladii dhexe iyo Jubbaland isma hayaan xiriir kama dhaxeeyo wada shaqeyn ma jirto xataa isma arki karaan intaysan doorashadii la gaarin ma laga yaabaa in reer Jubbaland iyo dawladii dhexe isu yimaadaan mise haysan xubnihiinii baarlamaanka wadiiqooyin la isugu keeni karo waad mahadsantahay su-aasha ayada dowladda federaalka waa dawlad mataqaanaa dawladda Soomaaliyeed weeye waa dawladii mataqaanaa dalka u sareysay ilaadanka mataqaanaa wax waa la kala taban karaa wixii la kala tabanaya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Jubbaland kala tabanayaan waxaan rajaynaynaa si wanaagsan inay ku dhumaan doonto oo miiska la iskugu imaan doono